السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سلام يا كسر وهذا القناة كيجا. ولا لي سؤال أي على يقعد صديق يسوي دي جواب تيدنا اللي يقصويا. سؤال شاس أو سؤال أي قبل ولا شيء والجلسي. تاسو عقب كان أما طبعا كان iyo in hadii uu cunugu uu maaragtay isu soo sixi waayo isu soo gudin waayo hadhowta ay sheekada qalin tigi doonto horta dabakeen ama cagakeen waa maxay waa cunuga oo meeshii laga rabay madaxa in uu maaragtay la soo hormara dabada ama lugaha ama cagaha saa u taqaaniin yani dabada laftigeeda markuu la soo hormarayo qaab ayuu ula soo hormaraa mararka qaarkood isagoo saas lugaha isku dhaafsan ayuu dabada keenaa mararka qaarkood isagoo micnihii markaan leeyahay lugaha isagoo saa isku dhaafsan sidii qof kursi ku fadhiyo lugaha isdhaafsiiyey oo saas iskugu jabsan ayuu dabada la soo hormaraa mararka qaarkood hal lug ayaa u laaban hal lug ayaa u baxsan ayuu la soo hormaraa mararka qaarkood labadii lugood oo caadi ah oo saas uu iskugu haysto ayuu la soo hormaraa isku soo duuduub hadiiba uusan marna uusan madaxii la soo hormarin waqtigii la sugayay inuu maaragtay dhasho waxaa dhici karto in hadhowto loo diyaariyo loo qorsheeyo hooyadaas in lagu qalo cunuga 2 wiig ka hor xilligii uu cunuga dhalan lahaa ayaa la qalaa labadaas wiig waxaa looga soo hormarinayaa waxaa la diidayaa in ay qabato hooyadaasi fool inay foolato ayaa la diidayaa okay ma jiraa marka dad ku dhala cagakeen ama dabakeen way jiraan dad ku dhala dad waliba waxaa jira ku dhahayo yani saan moodeyni ma ahan oo maaragtay easigu ahaayo aad buu u sahlanaayo uurkayga ilmahaygii kale wuu ka sahlanaa fooshoodiyo dhaqsay wixii ku dhaceen way jiraan dad dhahay okay isbitaalada qaarkood ma ogola oo waxay ku leeyihiin waa qalliin isbitaalada qaarkoodna way ogol yihiin in uu maaragtay dabakeen lagu dhali karo laakiin waa in dhowr wax la fiiriyo waxaa la fiirinayaa caafimaadka cunuga caafimaadka hooyada miskaheeda inay waaweyn yihiin oo kaleeto qaabka cunuga positionka cunuga uu ugu jiro caloosha ayaa la fiirinayaa haddii wax walba okay noqdo oo hooyada miskaheeda weyn yihiin waa loo diyaarin karaa waa loo sii qorsheyn karaa markaas in maaragtay ay hooyada ay cagakeen ama dabakeen ay ku dhasho mararka qaarkood qalliin ay gelaysaa waa haddii positionka uusan ku habboonayn uusan fiicnayn saa idin sheegayba waa lasii qorsheynayaa in hooyadaas la qalo okay marka qaab nooceeya ayaa la iskugu dayi karaa cunuga in loo soo rogo marka madaxiisa waxaa la iskugu dayi karaa horta ultrasound ayaa lasoo diyaarinaya dhakhtarka ayaa soo diyaarinayo dhowr umulisooyin ama kaalkaaliyayaal ayaa u imaanayo waxaa jirto qaab iyaga ay cunuga u rogaan dadka qaarkood ilmahooda already gudub sidaas u ahaa waa laga yaabaa dadka qaar inay sahlan tahay dad baa lagu guuleystaa dad baan lagu guuleysanin oo aakhir qalliinkaas loo diyaariyaa okay waxaa jira marka ilmo ayaga iskood isa soo roga oo hadhowta madaxii hoos keena ilmo waxaa jira dhowrba jeerba isa soo rogay oo maaragtay ka noqday oo isa soo rogay ilmo waxaan jira aanba isdhaqaajin oo booskii ay markaas joogeenba ka helay oo iskaga jira isku soo duuduub dhowr siba waa loo soo rogi karaa si waa sidaan idiin sheegay dhakhtarka ayaa soo rogaya sina waa hooyada way isku dayi kartaa laga yaaba inay ku guuleysato laga yaaba inaysan ku guuleysan marka waxaan rabaa walaasheeda Soomaaliyeeday stresska iyo fadhiga badan uma fiicna ilmaha maaragtay oo dabakeenka cagakeenka ah badanaa ilmahaas isma soo rogayaan haddii fadhiga badan yahay ama maaragtay stress xoogaa iska jiro marka sidaa darteed aniga tii aan kuugu talagalay qaabkii aad samayn lahayd because waxaan kuu leeyahay qaabkan waa laga yaabaa inay cunugu isu soo rogo waa laga yaabaa inay isu soo rogin aniga dad aan u sheegay arrintan ayaa ku guuleystay qaar haafay ku guuleysteen qaarna way ku wada guuleysteen in ay cunugii isu soo gediyo marka qaababkaas ayaan kuu sheegayaa insha allahu tacaala mid waxaad samaynaysaa sidii adiga oo sujuudsan in micnihii roogaaga ayaad maaragtay ku fariisanaysaa oo maaragtay waxaad samaynaysaa roogaagii ayaad ma fariisanaysid waa sidii qof sujuudayo jilbaha iyo gacmaha ayaad dhiganaysaa afartaas ayaad dhiganaysaa oo qaab noocaana ayaad ku samaynaysaa
ayaad samaynaysaa. iga raali noqda haddaan waxaan oo kaleeto cilmi unba iga tahay iyo maaragtay caawinaad saas oo kaleeto. saas waxaan u leeyahay caloosha waxaa la rabaa inay ku laalaado. markaas haddaad doonto wejiga waxaad saaran kartaa barkin, wejigaaga madaxaaga meesha ku aadan dhankaa doontaa u jeesan kartaa 20-30 daqiiqo intii aad awoodid lugahaaga iyo jirkaaga awoodaan ayaad samaynaysaa. dhowr jeer ayaad maalinkii ku celcelin kartaa. maxaan ku dhahaa waxaa kaloo samayn kartaa arrin kaleeto, sariirtaada ama fadhiga ama miis markaas gaabana xoogaa okay ah ayaad iska soo laalaadinee. markaan leeyahay waa iska soo laalaadinee, lugihii waxaad saaranee fadhiga, kaba soo qaad fadhigaaga ayaad saaratay, calahana dhulka ayaad saaranaysaa. laakiin markaad saa samaynayso make sure in lagula joogo oo markaas dad ay guriga kula joogaan, ay garabkaaga ay taagan yihiin, dhinacaaga ay joogaan oo ku caawiyaan. maxaa yeelay calool inaa u hormarto dhacdid, inaa ismaaragtay dhaawacdid, cunugga kaa dhaawacmo looma baahnaa. waxaa la rabaa si taxadar leh dad waa inay kula joogaan, dhinacaaga fadhiyaan, ku caawiyaan, ku fiiriyaan. waxaad samaynaysaa gacmahaaga ayaad dhulka dhiganaysaa, jilbahana kursiga ayuu kuu saaran yahay. saas ayaad samaynaysaa. I hope inay arki kartid. jilbahii kursigu kuu saaran yahay ama sariirtaada jiifka ah, gacmihii ayaad dhulka la hormaraysaa, dhulkaad dhigaysaa, ama haddaad doontid suxullada ayaad dhiganaysaa. mar walba waxaa lagaa rabaa calooshii inay ku laalaado. calooshu waa in ay ku laalaado oo ku foorarto. arrintan gabar aan u tilmaamay oo aan tusay ayaa samaysay maalinkii la rabay inuu cunugeeda la soo gediyo. waxaa la yiri cunugii already wuu isu soo gediyey ayadoon la soo gedinin oo la diyaariyey dhakhtarkii iyo wixii dadkii soo gedin lahaa ee qalabkii. markaan waxaan kuu rajeynayaa walaashayay in cunugaagu uu isu soo gedin doono. in allaaliya inta awoodid samee. chicken upka dambe waxaa laga yaabaa in la yiraahdo looma baahna. fadhiga iyo stresskana wuu u daran yahay. gabadhii taqaano, gabdhaha ay daawanayo qaarka yaqaanaan inay biyaha ku quusaan maaragtay meelaha swimming poolka ama badda iyo inay quusi karaan, kuwaasna way samayn karaan gacmaha inay biyaha ku quusaan. laakiin waa qofkii isku halaynayo dabaal fiican yaqaano, ayadana way soo gedisaa cunuga. gacmaha markii biyaha qofka uu ku jiro oo gacmaha uu la hormaro oo lugihiisa ay kor taagan yihiin, mar walba waxaa la rabaa position uu calooshu hooseeyo, position uu calooshaadu hooseeyo, meeshii caadi aan u taagnayn bilcaks inuu u taagmo. cunugu isu soo gediyaa. waa lagu guuleysan karaa, waa lagu guuldaraysan karaa. mar walba samee adoo sujuudsan oo fadhigaaga joogo ama qolkaaga meel markaas raaxa leh oo lugaha aan maaragtay aan wax kaa qabanaynin ku samee. marada maxaa la dhahaa isheg barkin ayaad madaxa xataa haddii la doono meeshaad madaxa iska ahaan lahaa barkin ayaad ku yaranasan kartaa. waxaan rajeynayaa inay maaragta arrintaas ku caawisay. badanaana ilmaha inuu cagakeen ama dabakeen yahay waxaa lagu garan karaa marka ugu horeysa ee hooyada ay 30 wiig iyo xoogaa tahay, ama 33, 34 ama 35 meelahaas ayaa waxaa laga yaabaa in madaxa gumaarka ayaa madaxa cunuga la fiiriyaa in uu madaxiisii uu isa soo maaragtay gediyey oo hoos u yimaaday. wadnaha xataa dhawaaqiisa waxaa laga yaabaa meeshii laga filinayo meel kaleeto in laga dhawaaqi laga helo. ultrasound la saaray ayaa xataa sheegi karta cunuga inuu maaragtay positionkiisii hadda jooginin. waxaasoo dhan isku soo duuduub. abaayaday su-aasha isoo weydiisay, ha baqin, ha walwalin, ilaahay ha kuu dhib yareeyo. maxaa la yirahdaa biyo badan cab, cuno fiicanna cun,
maxaan ku dhahayo waxaa dhici karto in xataa gabdho lagu dhalay iyaga laftigooda cagakeen ama dabakeen ay hadhowta ayagana ilmahooda ay cagakeen ama dabakeen noqdaan wax maaragtay oo la yaab leh ma ahan waa wax iska caadiya waa wax dhaca waxaa samaynaysaa insha allah waqtiyaa haysataa ilaa iyo intaa ka dhali doontid xataa waxaad weydiisaa oo isbitaalkaaga aad weydiisaa in aad ku dhali kartid maxaa la dhahaa cagakeen ama dabakeen because waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu qofka caadi u noqdo iisi u noqdo markaas kala tasho dhakhtarkaaga iyo umulisadaada wax walba walwalka badanna iska yaree ilaahay kala saaro waxba dhiba ma lahan qaliinka xataa waa inaad isu diyaarisid maskaxiyan iyo jir ahaanba waa inaad lasoo qabsatid toddobaadyadaas aad haysatid badanaa 2 wiig ka hor ayaa gabadha la qalaa si aysan usii foolanin oo fool aysan ugu imaanin foosha laga hortegayaa waxba sadhig ma lahan insha allah tacaala sidaan kuu sheegay samee sariirtaada ama miis ama waxaas maaragtay mar walbaba ama sidii sujuudii 4 dhigo ama iska soo laalaadi maxaan ku dhahaa waa in lagula joogo waa inaadan isdhaawicin waxaasoo dhan ka taxadar igu soo jawaab celi insha allah tacaala dhowr jeer samee ilaa inta maaragtay cunugaagu isu soo gadin doono samee ha ka quusanin naxariista ilaahay waxaan ku leeyahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى